hotel maamuusa magaalada Hargeysa waxa iskugu yimid salaadiinta odayaasha waxgaradka boqorada caaqilada mid kamida beelaha dega gobolka Maroodijeex Saaxil Togdheer iyo Sanaag waxaanay boqoradan iyo salaadiintani taageereen shiray hore u shaaciyeen guddiga beeshaasi waxaana kulankaasi goobjoog ku ahaa suldaanka guud ee beelahaasi Suldaan Cismaan Suldaan Cali Suldaan Madar boqor Raabi Yuusuf Cabdilaahi boqor Faysal Cismaan Faarax Xaamud iyo xubnihii kale ka soo qayb galay intii kulankani socday waxay salaadiinta boqorada iyo xubnahan kale halkaasi ka jeediyeen hadallo kala duwan waa kuna iyagoo arintani ka hadlaya guddida beelaha Garxajis iyo dhamaanba maxay khiyaarta iyo odayaasha madashan fadhiya ee ka soo qayb galay shirkan aanu qabanay ee jaraa'idsa la sheegay waa idin mahad celinaynaa aad iyo aad baanu dhamaantiin bay idinku mahad celinaynaa kasoo qaybgalka ka soo qayb gasheen guddida guud ee Garxajis iyo khiyaartiina kalaba ee aan ugu timaadeen madal waliba waxay leedahay munaasabadeeda ay leedahay sida la sheegay ee salaadiintii ugu horeeyay sheegeen waa ku urusay ku kooban yahay inaanu marka u horeysa bogaadino aad iyo aad baan ugu mahadsan yihiin guddidu intay xilka haysayna runtii guddi aad u qiimo badan oo barakaysan oo runtii muxuu ahaa chiefka wuxuu yiri hadaanu qaldanayn halkan la iman mayne meelaha sabaan waa qalad boorta kamaan aan arag runta marka laga hadlayo laakiin waa maxay hayday waxa weeye waa guddi barakaysan intay hawsha soo wadeen horena waa ku hambalyeynaa waa ku bogaadinayna waa ku sharfan yihiin maanta oo ay go'aankii maxay hayday ugu dhawaaqeen beesha inay danaheeda ka tashato oo shir guud isugu timaado oo xilliga iyo meeshana la soo sheegi doono guddi qabanqaab ay u sameeyeen hawsha ay qabteen aad iyo aad bay ugu amaanan yihiin waxaanay shirkan jaraa'id iyo madashan ku urursan tahay oo aniguna aan runtii shirka inoogu soo gabagabeynayaa waxa weeye shirkaas sidaas aanu anaguna ku waafaqsanahay hadaanu mustanbeedka salaadiinta nahay oo aanu maxay ku bogaadinaynaa insha Allah shir midho dhalo oo khayr la sidii ku horana in Ilaahay nooga dhigaabaynu rajaynaynaa waqtiga iyo madasha iyo maxay arinta qaybta hadhayna guddida inoo daadihin doonta iyada hawsha inoogu maqano aynu agmanay marka iyadaynu marka wixii damana hadba meesha maxay waqtigeeda ayaynu kala socon doonaa tirsiga 9 bisha December waxaanu shir saxaafadeedkan u qabanay oo dadka isugu yeedhnay awalan Ilaah baa mahad iska leh mahadda labaad inaanu mahad celino guddiweynaha Garxajis kuna hambalyeeyno shaqada weyn ee ay qabteen isla markaana cadeyno haddaanu nahay ismada mustanbeedka guddida Garxajis inaanu taageersanahay oo waafaqsanahay shirka ay ku dhawaaqeen sidoo kale inaanu taageersanahay guddida qabanqaabada ee ay magacaabeen dadka gudo iyo dibad meel kasta ay joogaana waxaanu ugu baaqaynaa shirka ay ku dhawaaqeen guddida Garxajis ee ah mid la isku waafaqsan yahay mustanbeedkuna taageersan yahay guddida qabanqaabadana ay magacaabeen in la taageero mug iyo miisaan la meel walba looga muujiyo sida la sheegay ayaanu u qabanay waxaanu ku taageeranaa oo taageero ugu muujinanaa guddidu go'aanka wanaagsan ay qaadatay ay ku magacaabeen guddida qabanqaabada ay ugu baaqeen shirka guud ee beelaha Garxajis oo aayahooda ka tashanaya baanu ku ayidsanahay ujeedada shirkuna waxa weeye nuxurkiisu arinta ayidaadiisa marka waxaan u sheeganaa guud iyo dabadba in shirkaas sidiisa loo qaato oo loogu amal falo oo lagu taageero meel kasto ay joogan annaguna sidaasaanu ku taageersanay oo aan ku ansixinay wa billahi tawfiiq wa ma santiin Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa